بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. waxaan jecelahay inaan salaamo dhammaan shacbiga reer Somaliland fariinna halkan uga diro shacbiga reer Somaliland. Fariintaydu waxay ku saabsan tahay maadaama xisbiga wadani cadeeyay mowqifkiisa ka taagan yahay saldhigga military ee Jamhuuriyadda Somaliland sheegtay inay siisay dowladda Imaaraadka ee magaalada Berbera maadaama xildhibaanada golaha wakiilada ee ka soo jeeda xisbiga wadani ay cadeeyeen mowqifkooda oo cadeeyeen shacbiga reer Somaliland waxaan aniga oo ah gudoomiyaha golaha wakiilada ahna musharaxa xisbiga wadani shacbiga reer Somaliland oo cadeynaya inaan la mowqif ahay xisbiga iyo xildhibaanada ka soo jeeda xisbiga wadani ee golaha wakiilada oo cadeeyay inaan saldhigga military wax dani Somaliland ugu jirin. Su'aasha ugu horeysa isweydiinayna shacbi ahaan waxa weeye baahi ma u qabnaa saldhig military? Jawaabtu waa maya. muwaadin kasta ha isweydiiyo muxuu inoo soo kordhinayaa saldhiggani ma magac ma maamuus ma qiime ma ictiraaf? jawaabtu waxa weeye midna inoo soo kordhin maayo. waxaa jirta dowladda aynu saldhigga siinayna waxay u aqoonsantay Somaliland dal ka mid ah ama qayb ka mid ah Soomaaliya. taas daraadeed magac iyo maamuus iyo magac iyo qarannimo inoogu soo kordhaysaa midna ma jiro. haddaynu isweydiino oo aynu qarannimadooda hoos u yaro dhiganno maxaa manfac inoogu jiray haddaynu isweydiino wax manfaco inoogu jira ma jiro. sida la cadeeyey dokumentigii ugu horreeyey ee ku soo codsatay dowladda Imaaraadku saldhigga waxaa ku caddaa in kirada saldhiggu ay tahay $1.2 milyan sanadkii. qiimahaas intuu leegi waa garanaysaan. saldhigga Berbera ama madaarka Berbera waxaa hore u adeegsaday dowladda Ruushka iyo dowladda Mareykanka. dowladda Ruushku waxay ugu bedeshay Soomaaliya xilligaas inay dhisto ciidankii ugu xoogga weynaa Afrikada Madow. dowladda Mareykanku oo 1981kii Soomaaliya heshiis kula gashay inay isticmaasho oo kaliya waxay 1981kii qiimuhu ku joogay $100 milyan oo waqtigaa joogay. haddii la qiimeeyo maanta lacagtaasi waxa laga yaabaa inay u dhiganto $1 bilyan oo marka manfaca la sheegayna markii dadku la yaabay waxa shacbiga hadda loo sheegaa mashaariic baa inoogu bedelaya. maxaa dhaxal inoogu jira? carruurtana dhaxal ma ugu leeyahay mashruucani? jawaabtu waa maya. 25 sannadood ayaynu qayb dhulkeena ka mid ah dal shisheeye siinaynaa oo bilaash u siinaynaa. 25 sannadood macnaheedu waxa weeye dhulka aan inagu leenahay awood uma lihin oo ma geli karno. 25 sannadood kama kicin karno. saldhigyada militariga taariikh bay leeyihiin. waxaa ka warqabtaan saldhigga Guantanamo Bay ee ku yaalla Cuba. Mareykanku 100 sano ka hor ama ka badan buu la seexday Cuba. wuxuu awood u waayay Cuba inay ka kiciso Mareykanka saldhiggeeda halka ku yaallay. taa daraadeed macnaheedu waxa weeye dhul aanad lahayn oo dhulkaaga ka bixisay 25 sanana aanad ka hadli karin. waxay ila tahay dhaxal uga tegi mayno carruurteena dhaxal xun baynu uga tegaynaa. waxaa kaloo intaa dheer saldhiggu wuxuu yeelan doonaa saameyn colaad inoo keenaysa. waxaynu ka warqabnaa dalka Yemen iyo Somaliland waxay isu jiraan 90 kilomitir ama 90 mayl. dayuuradaha waxaynu ka warhaynaa dalka la siinayo saldhigga inuu dagaal kula jiro dalka Yemen. waxaynu ka cabanaynay Somaliland
berigii siyaad bare in dayuurada inagu garaacayo marka dayuurada ka kaca berbera ee soo duqeeyay Yaman waxaan xaqiiqa inuu jawaab colaadeed ka heli doono taasoo aan nabadgelyada Somaliland ku faanayso iyo dalkeenaba khatar gelin karta haddii intaasoo dhan la iska dhaafo heshiis horta ma jiraa waan isweydiinaynaa inkasta oo shirguddoonka labada aqal madaxtooyadu u sheegtay inay golayaasha keenayso heshiis ay la gashay dalka Imaaraadka Carabta wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland wuxuu cadeeyay inaanu jirin haba yaraatee wax heshiis ah oo ay wada saxeexdeen jamhuuriyadda Somaliland iyo dalka isu tagga Imaaraadka Carabta waxa isweydiin leh maxaa berri golaha la keenaya oo golayaasha la keenaya balaad bagaro waxay la tahay way iska soo bixi doontaa eesh qiyaasak waxa ka soo bixi doona halkaas fadhiga wada jirka labada gole dastuurku wuxuu cadeeyay qodobka 8 faqradiisa 6 waxyaabaha labada gole la isugu iman karaan ay fadhi wada jira ka yeelan karaan heshiis xukuumaddu la gashay dal kale kuma jiro waxyaabahaas markay heshiis noqoto ama ansixin waxa dastuurku siiyay golaha wakiilada sida ku cad qodobka 53 faqradiisa 3 waxa ka warqabtaan dhammaan wixii ansixina waxa iska leh golaha wakiilada haddii miisaaniyad tahay haddii wasiir tahay haddii heshiis tahay tixgelinta waxaan ku tixgelinay oo kaliya waxa weeye fadhigaas in madaxweynuhu jamhuuriyadda Somaliland soo codsaday in labada gole uu la kulmo taasi fadhigani runtii wuxuu khilaafsan yahay procedure-ka ku xadidan dastuurka ee golayaashu ku shaqeeyaan walaalayaal taasi waxay noo sheegaysaa sharcigu inaanu guurin ee laakiin dadku guurguuro waxay u eg tahay inaan indha isku qabad hebed u noqonay haddaynu nahay baarlamaanka Somaliland fariinta xildhibaanada aan u dirayo mudanayaal maanta xilku idinku saaran yahay waajibaadka baarlamaanka waxa ka mid ah ama baarlamaanadaba inay xukuumadda daba galaan wixii ka xun toosiyaan inay ku shaqeeyaan dareenka dadka shacbiga ay matalaan waxay la tahay maanta berrito ama magac baydun qaadan ama naanays xun baydun qaadan oday xakiim oo golayaasha ka tirsanay wuxuu beri hore isagoo la dardaarmayo golayaasha ku yidhi caloolla waa leedihiin caqlina waa leedihiin maanta waxaan leeyahay caqliga doorta kala xadaynta awoodaha waaxyaha qaranka waxay la tahay inaynay qarsoonayn in maanta waaxyihii kale qaranku ay xukuumadda u nuglaadeen hadday yihiin garsoor hadday yihiin sharci dejin waxaa ka warqabtaan in maalmahan dhammaan xubnaha golayaasha labada aqalba reer iyo qofba madaxtooyada loogu yeedhayay iyagoo laga codsanayay heshiis aan jirin sida wasiirka arrimaha dibaddu sheegay in loo ansixiyo baarlamaanka laftigiisu wuxuu u baahan yahay meelaha shacbiga uga baahan yahay reer Somaliland gurmad waxaan shacbiga ugu baaqayaa in baarlamaanka uu soo gurmado السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهجاج مجا حسن هيدا محمد عبد الله واحد هاي قدوميها قراءة وكيلة إن مدحوينها سوماليلاند هرميو ورقد إذن كقعد سنة يو إن أنسحسان أما أدميل مريسان ما يدين سوق قاردي هذا يدين سوق قاردي موافق سنة هاي شروع دا مركز هشيسية عن كانوا كلا أي حكومة دقلة يسوق إن dadka reer Somaliland waxay isweydiinayaan maalinta bariya madaxweynuhu ma wuxuu idin ka codsanayaa inaad ansixisaan mise khudbadii uu jeedinayaa bal arrimaha u yara بسم الله الرحمن الرحيم
madaxweynuhu wuxuu golayaasha u soo qoray warqad ay ku qoran tahay kagana dalbanayo in fadhi wada jira labada gole la isugu yeedho si looga tashado arrimo amni. shirguddoonku arrintaa umay caddayn ajendaha golaha loogu yeedhayo, sidaa daraaddeed shirguddoonku isagoo dee shirguddoonkii waxaa hadda guddoomiye u ah guddoomiyaha gurida wuxuu xukuumadda weydiiyey inay caddeeyaan ajendaha ay la hor imanayaan golayaasha. salaasadii hore bisha 7deedii shirguddoonku wuxuu la kulmay madaxweynaha. madaxtooyadu waxay u caddaysay shirguddoonka in ujeeddada loogu yeedhayo labada aqal ay tahay inay keenaan heshiis ay la galeen dowladda imaaraadka carabta. hase yeeshee sidaa dee ka maqashaysiin warbaahinta wasiirkii arrimaha dibadda wuxuu sheegay inaanu jirin heshiis ay somalilan iyo dowladda imaaraadku kala saxeexdeen. taasi waxay mugdi gelin doontaa waxa berri iman doona golaha hortiisa. waa hagaag si kale su-aashaan u dhigo mudane guddoomiye waad mahadsan tahay. magacayga waa Faysal Fifa, Somali Cable TV ka socda. sidaa tilmaamtay wasiirkaad soo xiganaysa wasiirka arrimaha dibadda wuxuu sheegay in haba yaraatee aanu jirin heshiis la galay. mar hadday saa tahay maxaa meelonka waa ka degdegteen mar haddii heshiiskii baan la ogeyn noocu yahay kii ruushka inuu la mid noqon doono inuu ka qaalisanaan doono in qodobo badan oo Somaliland ku duugan oo itiraafku ku jiro